muqdisho anisa way ka heshay wiilka waardiyaha waxayna u qaaday jacayl laba habeen kasta waardiyaha waxay u sameeysaa casho aad u macaan dhadhankeedu sareeyo anisa looma ogola inay jikada gasho waxa laala waxay u baahato cunto ah waxa u soo diyaarisa booyaasta ama shaqaalaha guriga anisa waxay ku andacoontaa in cuntada ayada karisay ay jeceshahay waalidka anisa markasta wuxuu buriyaa ama uu ceeriyaa booyaas kasta oo cunno fiican u karin anisa laakiin anisa waxay u gashaa jikada sidii ku kasban lahayd qalbiga wiilka waardiyaha uma quurti inuu cuno waxay karisay gabar shaqaale ah waalidka anisa wuxuu ogaaday in gabadhooda ay xariir la leedahay waardiyaha guriga Ridwan oo ku qanacsanaa anisa maadaama ay tahay gabar wanaagsan noloshiisa isbedel ku keentay xitaa anisa waxay siin jirtay bil agaar oo ka duwan kan ay bixiyaan waalidkeeda Ridwan uma muuqdo markan nin waardiye ah markaad fiiriso labiskiisa muuqaal ahaantiisa waalidka anisa waxay ku baraarugeen in gabadhooda aan xariir aan caadi ahayn la leedahay waardiyaha anisa waa la taliyay inay ka harto ninkan waardiyaha ah hadday u baahato nin la siinayo nin dhanka nolosha ku leebal ah ayada anisa hadalka waalidka uma sii dhagtaagin mana tixgelin waayo waalidka wuxuu caqabad ku noqday jaceylkeeda waxayna yasmo iyo quuris ka dhigteen ninka ay jeclaatay xariirka anisa iyo Ridwan wuxuu ahaa mid qarsoon laakiin anisa waa qof wax jecel waxa ku batay fikirka joogtada ah iyo jacaylka ay u qabta Ridwan wayna yara caatooday maqalka dhagaha anisa waxa ku soo dhacay erayadan oo dabcan ka tarjumay dhibka markaasi haysta haddii aad ogtahay sida ay indhahay eegmadaada quraanka ugu oynayan waad ilmayn lahay haddii aad ogtahay sida ay indhahay eegmadaada quraanka ugu oynayan waad ilmayn lahay dhaguna raadiyo erayada macaaniyo ambaqaadka sheekada ugu oomayin kaamada musteenadi waalidka anisa waxay go'aansadeen in waardiyaha la buriyo si gabadhooda uga nabad gasho wiilka waardiyaha ah Ridwan waa laga ceeriyay gurigii uu waardiye ka ahaa anisa kuma farxin tilaabada ay qaadeen waalidkeeda waxayna tiri haddii Ridwan la buriyo aniga guriga waan iskaga tagayaa talada guriga markasta waxaa iska leh waalidka laakiin waalidka ma lahan qalbiga anisa qalbigeeda waxaa laga hagaa dareenkeeda anisa si qarsoodi ay lacag u siisay Ridwan waxayna ku tiri iibso mobile ha ka walwalin lacagta aniga ayaa kugu shubayo markasta igu soo wargeli xaaladaada Ridwan markii uu iibsada mobile isla markiiba waa laga dhacay mobilka sidoo kale lacag uu haystay oo aruursan jiray waa laga dhacay nolosha Ridwan waxay noqotay mid niyad jab ah inta ayaan ku soo gabagabeynayaa guud ahaanba qaybtii koowaad sheekadii la magac baxday dhimasho ayaan ka xigaa inaan dib kuu soo jeclaado sheekadan waxaa qalinka u qaatay qoraaga da'da yar daalac daahir shood waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdullaahi Faarax Nuur Cabdullaahi Yiriso halkaad ka dhageysanayseen waa shabakada caalamiga hiiranka.com stuudiyeeda magaalada Cape Town dhanka farsamada waxaa si hagar la'aan iga caawinaya saaxiibada Abuukar Jaliil Pakistani tani intaan ku kulmi doono qaybta labaad sheekada oo xiiso gaar ah habeenka Khamiista sida ayuu nabadgelyo dhageystayaal